marka maqasho nidaamka madaxweyne xasan sheekh maxamuud iyo dhul ama dhismo waxa ugu horeeya ee kugu soo dhacaya waa dhul dad laga barakicinayo la iibinayo ama dad dawladda ka tirsan la siinayo si ay dana shakhsi ah u adeegsadaan laakiin markaan waxa taariikhda nidaamka madaxweyne xasan sheekh maxamuud ee arrimaha dhulalka dhanka togan u bedelay wasiirka waqaafta iyo arrimaha islaamka ee dawladda federaalka ah Mukhtaar Roobow Cali Mansuur inkastoo Roobow uu dhinacyo toban leeyahay marka laga hadlayo waayihiisa isku dhafka arrimaha Soomaaliya haddana tan iyo markii uu ku soo biiray dawladda federaalka ee Soomaaliya oo laga dhigay wasiir buuxo wuxuu u muuqdaa mid ka duwan fiilashadii laga qabay hal maalin koor wuxuu madaxweyne xasan sheekh maxamuud xariga ka jaray dhisme cusub oo wasiir Mukhtaar Roobow u dhisay wasaaradda waqaafta iyo arrimaha islaamka ee dawladda federaalka lacagta lagu dhisay wasaaraddan $1 oo ajnabi ah kuma lahan waa lacag ay wasaaradda ka aruurisay adeegyada ay qabato ee uu ku jiro adeega xajka lacagaha wasaaraddan ay aruurisay 3 sano ee joogay Mukhtaar Roobow in lagu dhisay gurigan ayaa Roobow siisay sumcad wasiirka ugu macnaha badan xukuumadda ra'iisul wasaare Xamse ninkan wuxuu asturay xasan sheekh maxamuud nidaamkiisa oo aan dhisin hal goob oo dan guud ah muddadii 3 sano ahayd taasi bedelkeedana iibiyay intii badneed ee dhulkii danta guud madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo xariga ka jaray dhismahan cusub ee wasaaraddan ayaa wasiirada kale ee dawladda federaalka u baaqay in ay ku daydaan Mukhtaar Roobow oo ay ku dadaalaan in wasaaradahooda laga saaro guryaha kirada ah ama wasaaradaha kale ee dulsaarka ay ku yihiin Soomaaliya wasiirro maamulo sanadkii mashaariic $100 milyan ayaa degan guryo kira mana rabaan wasiirada inay ka tagaan taariikh dhismo $2 milyan ayaa ku filan in wasaarad walbo ay yeelato guri qurux badan oo qaranka loogu shaqeeyo dawladda madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa sidoo kale iibisay dhulal ay lahaayeen wasaarado guryo kira degan maanta lacagii dhismayaashaas lagu iibiyayna wax dhul ah looguma dhisin wasaaradii lahaa si walbaba Mukhtaar Roobow ayaa hadda haysta sumcad ugu fiican xukuumadda ra'iisul wasaare Xamse taasoo ah wasiirka qura ee wasaaraddiisa guri weyn oo ay ku shaqeyso u dhisay waa tilaabo ay tahay in wasiirro badan iyo dhammaan hay'adaha dawladda ay ku daydaan hadaba sida